xidhiidhka adiga iyo jihaan idinka dhaxeeya daanu joornaaladu ma ka akhristaa ninka hortay midda kale ninka waxa la sheegay inuu ganacsado khayrka jecel waaw wax walba dhacaba joornaalada ayaad kala socotaa miya marka dilkii Minaarna war ayaad ka haysaa maalinta joornaalka lagu soo daabacay وانا خرستي لكن سوالاشد بلين لغما سو قورين jaraayidka maalinta maad akhrisan miya gabadhaasi kooma ayay ku jirtaa waana gabadhii aad dhakhtar ku soo weerartay yaa amar kugu soo siiyay gabadha inaad disho ma jihaan kara taag ayaa amar kugu soo siiyay adiga noo jawaab wariyaha gabadha yar waa 19 jir iyadu walaasheedna iyadoo arkaysa indhaheeda horteeda ayaa walaasheedii weynad lagu dilay masaakiinta yarna tuugtu way daba socdaan waayo cadayn ayay ka haysaa waxay rabaan inay dilaan markay rabeen inay dilaan way ka soo baxsatay haddana kooma iyadoo ku jirto dhakhtarka joogta ayay rabeen inay dilaan waxay rabeen gabigeedaba inay dilaan marka cidda ku soo dirtay noo sheeg wariyaashaadba weyne adaan kula hadlaya naasuma ku soo galay jihaan kara taagde ee la soo diray isaga ka dalbaday Soomaaliya disho waayo wasaqdiisa si uu u nadiifiyo sida darteed buu ku soo adeegsaday Soomaaliya uu ku yiri gabadha u dil war jawaabtu sidaas ma aha isku dayna noo inaad faqfaqdo adu jihaan kara taag bad ku waalantahay Soomaaliya anagu waalan naga day sidee waan arkaa dhexdiina waxba waxaan ku ka jiray markii hore saas darteed anaga nagu marmarsiinaysa ninka waxa doonaysa inaad ka harsato sii wad ha markaasad waxaan ku ninkaad ku waalantahay anaga doonaysa afkeena naga galgalisay ka hor naga galgalin baan ku dhaafkana ayaa na qasbi oo yan ku fikiraya marka ii sheeg bal Hashmat Kabralul ma isaga ku maamula war ii sheeg isaga ku maamula sama madaxa maafiyaduna waa isaga waxba idima sheegayo su'aaluhu ka baxsanaya maanta oo dhan nayaha heed mid ku sheega ninka uu nooga hayna dhibaatada kala dhaxayso midda kale haduu Hashmad iyo haduu Jihaan maxaa waxa ku farqiga u dhaxeeyo dameeriya labadiisi dhugood marka nooga sheekade ma bar hore ayuu kugu samaystay ku baxdilay ilaa wadigan ku soo indhacade na wuxuu isku mid nooga sheekay warkaalin nacasi oo xumi Jihaan ayaa u shaqaysaa Soomaha ii sheeg wariyaa Jihaan karata la shaqaysaa kuma dhaafay baan ku wariyaa nacas xumbaatay adigu lagama yaabaan ku inaan ku cafiyo ka wayaan kaaga siinaya dabadhi lifkiisi ayaa tahay ay xun ayaa tahay lagama yaabaan ku inaan ku daayo isibri oo xumi waxaad ku hadlaysaa Leila khalad baa sameeyay baan ku wariyaa naga wakaas intii cirka nagu soo dumi naya waa qalad waxaad samaysay anigu waan ka dacwoon doonaa waad arki doontaa istimbrad yahay waxaad samaysay waa wax qalad baan ku yiri gudaha galbaan ku igu sii sug ma faantay socod aanu taagnaane waa dhaqankaaga waa yahay inaad aniga igu san samaysato dibahdisho waa iska caadi wadade shit handa su'aalaha intaad ka wada qorto madaxda sare u gudbi markaa ninka maxaad beenta ugu sheegtay imika marka ogaada Jihaan inaan arjumaan gacanta ku hayn isagu u waalanaya waa soo helaya baan ku kaayr arjumaad leela midda kale wixii doona ha dhacaane adigu inaad diyaar garowda loo baahan yahay diyaar garow maxaya kuma fahmin maxaad ka wadaa lama joogisid baan ku yiri anaa ka soo kaxaysanay isaga stupid weeyaan wali maqashay Soomaha ها هذا ما كويس علينا تدي حول بايقو صباح وكا ورقة سجنيجا هيو الرسولتان وين نكلب إحنا مانتا ولا الكي يندوني نمكجور يجسو حول بدنا يا إمكانك يقدر إن شقوي كي قبضان دنيا يسمى كولا الكي دي وركو هذا ماذا هذيك دقيقة ما كورلا يرفع لسان ولا هذا اللي هذا بقى بعد وسيدتك هليسا هي أوجست بركاسالك وكتير يسقو قرنايو